بسم الله الرحمن الرحيم dhegeystayaasha qaayaha qiimaha lahu halkani waa Trisia iyo bogga YouTube-ka oo aan baryahan isku daro Trisia iyo video ahaan oo ka daawan kartaan channel cusub oo sameeyay YouTube la dhaho war iyo wacal dhegeystayaal caawa ma taariikhdu tahay 15 bishii 12aad 2020 runtii waa wax la yaab leh marka qaarkood markaad fiiriso sanadkii ayaa sidaa dilba ku tagay maaragtay waxaad ku xusuusinaysaa mararka qaarkood hadalkii ama xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee ahaa waqtiga qiyaamadu ay dhawaato qiyaamadu ma dhacayso macnaha ilaa ay waqtigu aad u yaraado oo maaragtay siduu macnihiisu ahaa maalinkii isbuucii uu noqdo maalin oo kale isbuuciina uu noqdo bishiina ay noqoto isbuuc oo kale sanadkiina oo kale bil oo kale noqdo hadda dhow ayaanu sanadka bilaamina 2020ga waxaad moodaaba inuusan ina dhaafayba inagoon xataa maaragtay la dareeminba marka laba dhaxaadkii ayaanu ku jirnaa maanta bishii ugu dambeysay sanadka 2020ka waxyaalihii wararka aad ka maqlayseen haddaan idinla taabto dhegeystayaal waxaa aad ugu jirta waddanka Mareykanka doorashadiisii waa dalka adduunka hadda ilaahay baa weyne waaxid ugu weyn oo nin dadka qaarkood ay dhahayaan waalan kuwa qaarkood ay dhahayaan waa nin doqon ah Donald Trump uu 4 sano u dambeysay madaxweyne u ahaa laakiin runtii waxaa aad iyo aad aniga aan oga helaa meel markuu wax ka khaldamo oo maaragtay wax si noqdaan faa'iidada anigu aan ka helay ee aad u dareemay waxaa ka mid ahaa waxyaalaha aad marka qaarkood aad ogaateen ayaad maaragtay ogaani oo iska duuduuban waxaan xusuustaa markii ay isqabsadeen markii horta madaxweynihii maaragtay uu ahaa ninkii la dhihi jiray Clinton markuu madaxweynaha ahaa ee lagu sameeyey wax la dhaho impeachment lagu sameeyey waxaanu adduunku wuxuu bartay wax la dhaho impeachment madaxweynaha oo la impeach gareeyo dadku guud ahaan korka ay ka fiiriyaan waxay moodayeen in baarlamaanka labada baarlamaan mid ka mid aha oo u codeeya oo madaxweynaha impeach gareeya inay macnaheedu tahay inuu madaxweynihii uu yahay in trouble ama maaragtay shaqadii laga qaadayo ma soo ahan waxaanu ogaanay inay arrintu aad iyo aad uga fogtay arrintaasi waxyaalaha mararka qaarkood nidaamku uu isticmaalo baa waxaa ka mid ahaa waddankan aan joogno ay ka mid tahay iyadoo ina saxna tahay markii loo fiiriyo in wax mararka qaarkood aan ahayn meeshii ugu dambeysay aad loo bombooniyo wax weyn laga dhigo iyadoo ay kuna habboon tahay markii si loo fiiriyo si arrin habboon ay tahay sababtuna ay tahay in haddii meeshii ugu dambeysay aad loo bombooniyo hadii markaas ay dhaadeen saca geeska qabo ay dhaaftay saca geeska qabo ay noqday arrintu tahay oo macnaha meel kale oo ka dambaysa ma jirto waxaana taas maaragtay iyadana diinkeena xataa looga helayaa misaal in uu ilaahay uu inoo sameeyey waxyaalaha leenaga xarimay ee ka soo qaad muharramka aha xaraamta aha inuu inoo sheegay inuu waxyaalo aan xaraan ahayn xaraanimadoodana ay caddayn xalaalnimadoodana ay caddayn ruuxiisa ku dhacdhaca oo xaaraanta oo inuu ku dhaco ay u badan tahay xadiis macnihiisu saas ahaa ay jiraan marka in marka waxyaalaha shubahaada la dhaho in laga fogaado macnaha ama la iskala hadlo la dhaho war waxaa ku dhicin war waxaas hebel ku dhacay war waxaas inay noqoto arrintu laakiinse markay noqoto xaaraantii hadday noqoto waxa laga hadlahay inay noqoto marka hadii waxa weeye wax ka dambaba ku dhimaba ma jirto taa waxaan oga jeedaa impeachment-ga waxaan baranayba wuxuu ahaa oo haddana berigii hadda Donald Trump lagu sameeyay haddana si kala cadaatay inay macnaheedu tahay wax u dhigma luqadeena waddanka hadda aan joogno oo kale ama boolisku waxyaalahay sameeyaan la mid aha to be charged oo kale ama lagu soo oogo in taan kali ah madaxweynaha dambi lagu soo oogay macnaha ruux kasta iska dhihi kara baarlamaanka mararka qaarkood madaxweynaha wax xun ka sheegi kara ruux siyaasi ah wax xun ka sheegi kara shakhsi baa wax xun ka sheegi kara hay'ad baa wax xun ka sheegi karta adduunka wax xun ka sheegi kara laakiin way ka bedelan tahay markii wixii si sharci ah oo nidaamsan loogu soo oogo sida iyadoo la mid oo kale inuu boolisku uu ku yiraahdo dambigaas ayaanu kugu soo oognay
mana aha dembiga macnaheedu waad gashay macnaheedu waxa weeye in booliska nidaamka qolada u xilsaaran inay sharciga ilaaliyaan oo dabaqayanaha ay ilaaliyaan oo dadka maartay khaladka ruuxi gala ay maxkamadda hor keenaan inuu dhaho dembigaas ayaanu kugu soo oogaynaa waana in la ogaado aad bay oga bedelan tahay dembiga ayaad gashay oo macnaheedu tahay lagugu xaqiijiyay way ka bedelan tahay marka impeachmentigu baarlamaanka guriga hoose waliba House of Representative-ka ayay tahay ugu jirtaa gacanta ugu jirtaa oo sameeya oo waxyaalahan baranay way Mareykanka ka baranay kaliya ayaga marka awood waxa ugu jirta wax weyn laga dhigahayay runtii si markii loo fiiriyana aan wax saa u sii weynahayn inkastoo in madaxweynaha jagadii laga qaado booski laga qaaday loo sii dhawaaday oo halfway la gaaray kala badda dhaqaaqay oo kale haddana se marka qaarkood sida laga dhigahayo ma aho waxa weeyaan kaliya ah dambi ku soo ogid in baarlamaankaas asaga aha marka ay aqlabiyadiisu ay dhahaan madaxweynaha waxaan u aragnaa inuu khalad galay khaladkaasoo khalad u astaahila inay shaqada lagaga qaado inay marka la dhaho madaxweynihii waa la impeach gareeyay walidaa ayaa Mareykanka oo dhanba saddex ruux ayaa waxa la saddex madaxweyne ayaa la impeach gareeyay mid wuxuu ahaa Bill Clinton kii isagoo mid hore ahaa waqti hore ahaa ma garanay hadda magaciisa mid wuxuu ahaa Bill Clinton kii ku xigayna wuxuu ahaa Donald Trump ahaa markii la impeach gareeyay markaas haddana Senate-ka ay u gudbaysaa Senate-ku marka inay jagada ka qaadaan waxay ay u baahan yihiin aqlabiyad aad u badan xataa ma aho wax la dhaho simple majority kaliya ama noqonaysa xataa oo macnaheedu ma aho in haddii ay ka soo qaad 100 ruux ay joogaan meesha 51 hadday u codeeyaan in macnaha shaqadii laga qaaday macnaha ma waxaan malin inuu yahay 3 meelood 2 meel wax noocaas oo kala 2/3 wax noocaas kala miyan malay waa tira aad u dheer in macnaha shaqada laga eriyo marka waxaan uga jeedaa taasi in aanu baranay markay impeachmentiga dhacday Mareykan impeachment lagu qaaday madaxweynahooda ama shaqa laga eriyay lagu dhaqaaqay inaan waxyaalo badan ka baranay nidaamkoodu iyo nidaamka Mareykanku iyo dalalkan maartay nidaamka degan leba sidoo uu sameeysan yahay ay u adag tahay madaxweyne ama nidaam la doortay inay maartay shaqada laga eriyo waxyaalo kale in baranayadana waxa kamid ahayd markii sidoo kale ay isqabsadeen Bush iyo Al Gore ay isku qabsadeen maaragtay maxaa la dhihi jiray doorashada oo Al Gore oo la tartamayay Bush-kii yaraa uu yiri ay u ekaatay inuusan aqlabiyad buuxda fuula uusan helin oo waxyaalo badan la isku qabsaday oo sidii loo codeynayay waxyaalo badan la isku qabsaday oo arrintii maxkamad aaday waxyaalo kale asagana baranay waxaana weligan dad maqlay uusan jirin oo maaragtay qarsoona ayaa maaragtay iyadana la bartay oo la ogaaday عفوا حقوبة يا رح شيء مركا هذانا وحيتاس وحي هيد واحد له impeachment كان process كده إنه سن هاين مركي مدحينها لإمبرج جريو إنه سن وصل مركا بماركتي شقدي سلوس جرينين أو هاين شقدي لقى قاضي أو كلام impeachment معناه دوحين نقطة وحن برا أمريكان كا إنه يتهيئون مدحينه الدم ببلغوس أوغي برلمان كا أقل كا هوسة أما House of Representative كله أيان تاج أود وجدتها مدة كلنا سندكنا ومدة مركب محكمة صارها يوية وهدي أي 3 ميلود 2 ميلود أي سكر عن أغلبية سيمبل أو كلي أمه مركب شقة اللوز جرين هي ساس بين هيد إن الصعتان وين سيدي وكوب بعدي نينك اللي يشتري دونالد ترامب إيوه السجع نفتي بيسوا معركتي نينك اللي يشتري نحوها كلينتون سنبتي ku badbaadi bahay madda kale in hadda barnaamijdan waxa kamid ah oo soo baxday waqtigiisan haraanba taabtay saysteen Bush iyo Al Gore wax la dhaho electoral college wax la dhaho ayaa marnay waa wax runtii markaad soos u fiiriso aad la yaabayso aad runtii oo la yaabayso waxay tahay waxaan ognahay doorashada caalamka adduunka ka dhacda dimuqraadiyadda la dhaho wax la doorto asalkeedu duudubaha markii la dhaho macnaheeda xaasilka ah dimuqraadiyad waxa weeye un shacabka dadka oo cod leh si ay u doortaan ruuxa xukuumaya ee madax u noqon haya siyaalo kala bedel marka u doortaan dad waxay u doortaan toos oo dadkiiba intii maalin la cayimo saacad la cayimo yaa la dhihi maalinkaas saacadaas u bilaabanaysaa ruuxa codka ugu badan dadka diiwaan gashan ee codeyn kara codka ugu badan ka hela ayaa madaxweyne noqon haya ama dalka maamulahaya muddadaas ilaa muddo laga gaaro waa midda waxa la dhahaa tooska ah mid kalena waxa la dhahaa midda dadbad weeye
taa dadban waxaa weeye waa midda waddankan Australia uu ku dhisan yahay waxaa weeye waxaanu dooranaa matalayaal dad matalayaal ah oo meeshii la arkaba xaafad lagu tilmaami karo kale ayaa doorta Australia waxay u dhowdahay meelaha 100,000 oo ruux agagaarkeeda way 100,000 oo ruux inta ku dhaway in yar waa ka badnaan karaa in yarna waa ka yaraan karaa dadka degan ayaa waxay dooranayaan shakhsigaas ayaa marka deedna dooranaya ruuxii dalka maamuli lahaa muddada haddana la isugu talagalay oo waxaa la dhahaa dadban taa naftigeedu waxaa sii dul saaran mid kale oo dadku inta badan dad badan ayna saa u dareemaynin oo ah midda ururada maxaan hadda idhi waxaan dooranaa Australia oo kaleete matalayaal baan dooranaa xaafadiiba ama areadii la arkaba ilaa 100,000 ruux ay degan tahayba hal shakhsi bay doortaan dadkaas ayaa marka deedna ra'iisul wasaaraha waddanka madaxda u noqonaya muddo 4 sano ah 3 sano ah ayay dooranayaan laakiin si arrintu haddana saas oo toosa ma aho way yara dadbantahay weli sababtoo ururo ayaa haddana jira markaad aad aragtay ururada tartamahaya hadda waddankan aanu joogno waxaa ugu badan labada urur ugu waaweyn waa Labourka iyo Liberalka ama xulafada oo ah Liberalka iyo Nationalka oo xulafa isla ah iyo Labourka ayaa ugu weyn markasta waxaad maqlaysaa midka iyaga matalahaya oo doonahaya in maartay uu prime minister ka noqdo oo la sheegayo ama la leeyahay mucaaradka hadda waqtigan aanu joogno mucaaradka waxaa hogaamiya Anthony Albanese ayaa hogaamiya dawladana waxaa hogaamiya maartay Scott Morrison ayaa hogaamiya oo ah ninka hogaaminaya xulafada ama Liberalka hogaaminaya marka away marka arrintii aan idhi ahayd dadka ayaa aanu dooranay matalayaasha ah ayaa markay Canberra isugu tagaan oo kale magaalada waddanka ayay doortaan ra'iisul wasaare away taasi waxaa ka xadfan haddaan dib ugu noqdo markaan kutubta akhrisan jiray waxaa la dhihi jiray waxbaa xadfan macnaha waxbaa ka maqan laakiinse ay tahay uu meesha ku jiro oo ka muuqdo oo macnaha aan markastaba la sheegaynin waxaa ka xadfan meesha oo ka maqan laakiinse taagan markastaba oo qayb weyn ka aha in ururku maadaama urur ay yihiin way sii heshiiyeen heshiiskaasna inta badan mar dambe haddana inay iskhilaafaan oo sidii aad la socotaanba Kevin Rudd ku dhacday oo Julie Gillard ku dhacday oo hadda bari dhawata xataa ku dhacday ninkii ahaa Liberalkaas madaxda u ahaa ku dhacday xataa ra'iisul wasaarihii hadda joogay Scott Morrison uu ku soo galay mooyeene guud ahaan waxay arrintu ku salaysan tahay ururkaasi ruuxaasay wataan marka maadaama ay koox yihiin kooxdaasi hadday codka dadka ugu far badan ay hesho haddana ruuxii markii ay wateen ay dhaheen ruuxana madax noo noqonaya ayaa noqonaya way bedeli karaan in minute bay bedeli karaan oo su'aashu ma inayna bedeli karin laakiin macnaha waxa weeyaan arrintu halkaas ay ku salaysan tahay way marka asliyan haddii loo raaco aaska laga raaco dadka aanu dooranay marka ay Canberra isugu tagaan sida alla sida ay rabaan ayay inta isu kooxaystaan sharciyan marka loo fiiriyo ay ruuxay doonaan ay dooran karaan oo aqlabiyada dhigan ruuxana ra'iisul wasaare noqonaya laakiin se saan ognahay arrintu ururay ku salaysan tahay oo marka dad isku dan aha isku maartay soona jiray waxba isku ku soo heshiiyeen wixii ay ku soo heshiiyeen ayaa marka soconaya waa wax marka qaarkood haddii ay bini'aadamku qalbigooda iska bedelmo oo noocyo waxyaalo kala soo dhaxgala qas badan keeni kara oo wixii sidii lagu waday waxaan ahayn keeni kara laakiin inta badan aynu dadku maartay ka leexanin oo sayta isaga raacaan oo ururka nidaamkiisa ku salaysan way marka waxaan idhi marka midaas waa midda dadban way mid kale waxaa jirta marka dadban haddana kale oo tii dadbanayd yaaba naftigeeda sii dadbanba oon ahaynba toos xataa ahayn waa midda marka ay soo galayso arrinta Mareykanka ee waxa la dhaho electoral college macnaheedu waxaa weeye isku soo duuduubo baarlamaan ku meel gaadhaha ayaa baarlamaanka gobolka uu maartay dooranaya kuwaasa marka deedna waxay soo aadahayaan markii ay qireen oo la soo ogaaday oo lala soo dardaarmay meesha ay u codaynayaan iyo ruuxa ay u codayn doonaan madaxweyne ayaa marka Washington intay yimaadaan ay marka madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa dooranayaan waxaan saa u leeyahay waxaan ognahay inay doorasho ka dhacday hadda waddanka Mareykanka bishii hore dhamaadkeedii bay ahayd haddadan maanta ayaa waxaa dhacaysay waxa la dhaho certification macnaha xaqiijintii ruuxii doorashada ayada aha ku guuleystay wali codayntii xataa ma dhicin ogaada wali codayntii ma ayna dhicin
madaxweynaha si rasmi ah loo ku codayn lahaa madaxweyne laga dhigi lahaa laakiinse waxaa dhacday wixii waxa la dhaho maaragtay certificationkii in macnaha sharciyan loo xaqiijiyo oo qoraal raaco waxaad garan kartaan oo muhiim ah in qalbiga lagu hayso meesha laga hadlayo dalkan dhan ee inta la eg ruuxa maamulahaya in aynan noqonaynin ruux dad meel isugu yimid oo mar la soo diray oo midba dhabarka laga soo taabtay oo mid la arkaba intuu isa soo waxeeyay wuxuu doono iska wato oo dabeecadiisii iyo xanaaqiisii iyo wixiisa iska wato laga yaabo inuu wax kala wato wax kale u yahay maskaxdiisu wax kala tahay dana kala wato inay intii dhukub soo dhahan meel isugu keeno la dhihi uun haye yaad u codaynaysan ama yaa la idin yiri u codeeya arrintu saa uma socoto marka inkasta oo markaad korka ka fiiriso nidaamku uu eegyahay nidaam aad iyo aad fawdo u ah oo runtii qaab daran oo la isku haleyn karin haddana se wax la dhaho check and balance aad u xoog badan ayuu leeyahay oo waxyaalaha soo babaxaya ka mid ah ilaa inta anigu aan ka fahmay maxay tahay arrintaasi marka Mareykanku wax ku doorto iyo maaragtay electoral college waxa weeye gobol kasta horta sidiisuba madaxweynaha wuu doortaa gobol kasta wadankan Australia aan idhaahno hadda saan niri prime minister ma doorano laakiin waxaan dooranaa matalayaasha ayaan dooranaa marka matalayaasha aan dooranne laakiin se gobol kasta ma doorto matalaha waxaa doorashada macnaha waxaan u jeedaa waxay tahay maamulidda doorashada way waxaan u jeedo macnaha markaan leeyahay gobol kasta asaga ayaa doorta macnaheedu waxa weeye gobol kasta asaga ayaa sharciga lagu dooran hayo madaxweynaha sida loo dooran hayo dadka maamulahaya waxaasoo dhan gobolka kasta asaga ayaa gacanta iskaga haysta laakiin inaga Australia hadaan waan ka bedelnay aad iyo aad baan uga bedelnay wuxuu gobol kasta gacanta ku haystaa doorashada gobolkiisa hadda gobolkeena Victoria Premier Daniel Andrew iyo dawladdiisa markii la dooranayo waxa gacanta ku haya oo maamula guddiga doorashada ee gobolka Victoria laakiinse markay noqoto gobolka guddiga doorashada ee federaalka shaqo kuma laha waxaan caawin oo ay naga caawiya dhahan ayaga dhaxooda mooyeen xagga sharci ahaan wax shaqo ay ku leeyihiin in habeerta ma jirto laakiinse doorashada dadka Canberra aadahaya baarlamaanka Canberra u dhaqaaqaya waxa gacanta ugu jirta oo dooran haya oo macnaha maamula doorashadiisa guddiga doorashada ee dawladda dhexe ayaa maamusha wax shaqo isku lamalo laakiin Mareykanku tiisu waxa cadaatay inayna saa ahayn xataa dadkii Canberra loo diray waxay la mid tahay kale gobolkan Victoria oo dhahaya annaga ayaa maamulayna cayimaynana diraynana saxiixinaynana dadka Canberra noo aadahaya ee dawladda noo dhisahaya ama matalahaya waa arrin aad uga badan weyn nidaamka Australia aan halkan ku haysano iyo ka midka Mareykanka macnaheedu aan ku celiyo macnaheedu waxa weeye dawladda gobolka ayaa waxay leedahay annaga ayaa gacanta ku hayna dadka matalahaya ee aadahaya Canberra annaga ayaanu maamulayna sida loo dooran hayo iyo sida maaragtay dadka dooran hay macnaha maamulahaya doorashadaasi tiradeeda sharcigeeda waxeeda annaga gacanta ku hayna ama ha noqotaan kuwa maaragtay baarlamaanka ha noqdaan ama kuwa kale oo nooc kale ha noqdaan marka Mareykanku gobol kasta saan niri madaxweynaha ayaga doorani haddaba doorashada ayadana maxay ku dhacdaa waxa loo qaybiyay cod gobol kasta tiradiisu inta ay tahay ayaa waxa loo qaybiyay wax la electoral college ama cod ayaga ku aadan ama haddaan si kale u dhinaano kuraas oo kale waxay ku calaaqaad la leedahay inta kursi ay sanadka iyo house guriga hoose ay doortaan oo kale ay wali calaaqaad la leedahay laakiinse hadda tan waxaan ku adkaysanaa baarlamaanka waxaan ku ayadkaysanaa codaynta madaxweynaha waxay leeyihiin gobol kasta wuxuu leeyahay intaas oo kursi oo codaysa madaxweynaha ay leeyihiin haddaba say u dhici ma la dhahayo sida Australia oo kale in la dhihi ka soo qaado kale Victoria haday ka soo qaado ay leeyihiin 20 cod misaal ahaan oo kaleete inay u codeeyaan in la dhahayo 20kii cod ba maaragtay 5 baa u codeysay dhinacan xaggana 20 baa u codeysay markaas lama dhahayo waxa la dhihi tartankii oo dhan ee madaxweynuhu wuxuu ka dhici gobolkan Victoria misaal ahaan markaas waxa la dhihi gobolka Victoria yaa ku guuleystay ma Biden baa hadda misaal ahaan ku guuleystay mise waxa ku guuleystay Donald Trump ku guuleystay
macnaha farqi ma laho hadduu hal cod oo keliya kaga reeyo iyo hadduu kumayaal cod kaga reeyo farqi ma laho keliya ah doorashadii oo dhan ayaa waxaa lagu soo ururinayaa gobolkaasi asaga ah oo laleeyahay gobolkani yuu u codeeyey aqlabiyadii yaa helay codka ugu fara badan ee shacabka yaa helay hadduu Joe Biden helo Joe Biden baa intii cod ay madaxweyne ay lahaayeen dhan qaadanaya isagu dhanta isku darsanaya asaga qaadanaya haddaba waana haddana arrinta kale muhiim kale waxay tahay idan la yaab kale dadka asaga ee laga hadlayo ma aho dad shaqadan muddo dheer haynaya ama baarlamaan ah ama jiri doona ma waa dad ku meel gaad un keli ah shaqadoodu keli ah waxay isugu yimaadaan un oo loo dhaariya oo loo shaqaaleeya oo loo macnaha loo arrintan loogu talagalay inay madaxweynaha u codeeyaan oo keli ah laakiinse waxaa soo baxday arrintu inayna ahayn si saan sheegayay saa ku duuduuban oo ruuxu suu doono uu suurtagalta inuu sameeyo process dheer baa la soo mari waxaa ka horta kow haddaan dib u yar noqdo waxaa caddaatay dadka asaga ah inay yihiin dadka nidaamka kusoo jiri jiray misaal ahaan waxaa maantadan aan ogaaday gobollada mid ahaa ma garanayo gobollada ka mid ahaa dadkii doorashayaasha ahaa doorayada ahaa dooranayay wax kale noqday afkayaan dadkii wax dooranayay macnaha electoral college-ka ahaa ee wax dooranayay madaxweynaha dooranayay sida ku meel gaadhkun u doortay shaqada bas la siiyay oo sii soconaynin waxaa ka mid ahaa Bill Clinton iyo xaaskiisii hore ee mar u istaagtay Hillary Clinton doorashada inay iyadana u istaagtay labadoodaas waa xaqiiqo weey labadoodaas ayaa ka mid ahaa dadkii waxay ahayd New York bay haddaan garanayaa gobanihii New York ayaa soo dhaweeyay oo si aad u soo dhaweeyay oo yiri aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay in Bill Clinton iyo Hillary Clinton ay nala joogaan ayna u codeynayaan ay ka qayb qaadanayaan codeyntan marka dadkii la doortay shaqada la siiyay ku meel yarta ee waqtiga kooban ah inay madaxweynaha u codeeyaan waxaa ka mid ahaa Bill Clinton iyo Hillary Clinton ee shaqada la siiyay taa macnaheedu waxay ku tusaysaa inuusan ahayn un ruux iska aloobaad ee dad lagu kalsoon yahay nidaamka raacahaya aanu qalbigooda iska raacaynin waa mid horta midda koowaad weeye midda labaad ee kale waxaa arrintan waxaa dirahaya oo shaqada siinhaya ma aho kaliya guddiga doorashadii oo yiri hebel ayaa ama hebel iyo hebel ayaa codka ugu badan helay marka haddaba idinkoo dhan waa inaad hebelkaasi u codeysaan kaliya ma ahe gobolkii naftigiisu waraaqa ayaa laga saxiixay matalan waxaa la dhahayaa waa in aad sidan u codeysaan dadkii gobolkani sidan ay u codeeyeen aqlabiyadooda halkan ay martay waa inaad sidaa u codeysaan haddaad saa u codeyn weydaan ood ka leexataan waxaa gobollada qaarkood bar waxay leeyahay ruux ciqaab xariga buu leeyahay kuwa qaarkood waxaa leeyahay ganaax iyo wax noocaas oo adigu wax kasaba noqotee ciqaab ayuu leeyahay ruuxa la ciqaabayo haddii uu samayn waayo waxaa kaloo iyadana ka soo caddaatay meesha oo markaan dhageystay say u dhacayeen iiga soo baxay arrintu inaynan ahayn in ruuxan process dhan la soo marinayo oo ka soo qaad ruuxan in uu raacahayo arrintu meesha ay tahay ee la rabay ee u socotay iyo in kale la sii ogaanayo oo intaas oo waraaqood iyo intaas oo waraysi iyo intaas process kale oo fara badan xataa aynan ogeyn inay soo marahayaan oo marka la ogaanayo ruuxan inuu yahay ruux yar dawaqayo wuxuu doona iska samayn kara inuu yahay iyo ruux nidaamkan siduu u yahay iyo caadadu say ahayd aan ka leexanayn iyo process dheer ayaa la soo maraya xaasilkii marka uu gobol kasta dadkiisii intiisii uu meel isugu keeno oo waraaqa laga saxiixo oo ay dhahaan ay codeeyaan waliba oo u codeeyaan maartay sidii loo tilmaamay wali waxa ka muuqata xataa inay waraaqaha sii saxiixeen oo ruux xataa inuu ay noqonayso inuu forgery inuu sameeyay haddii uu wax kala sameeyo maalan waxaa la sii ogyahay oo uu saxiixay in uu yiri waxaan u codeynhayaa oo aqlabiyadda gobolkan ku guuleystay hebel baa ku guuleystay marka hebel baan waraaqa noocaas soo saxiixaya meeshii ugu dambeysay hadduu codkiisii marka uu meeshii uu la yiri uu ahay inuu ku rido meel aan uu ku rido marka macnaha maxaad moodaa meesha inay ka soo baxayso loo qabsan karo oo la dhihi karo maaragtay waxaad samaysay forgery baad samaysay been baad sheegtay khayaan wax noocaas oo kala shacabkii baad arrintooda daba martay waxyaalo badan oo lagu charge gareyn kara jir ruuxa oo lagu waxaynayo waxaas oo dhan waa la soo sugay marka ay gobol kasta marka uu dadkiisii oo laga saxiixay ay soo sheegaan sidii la soo sheegay ee guddiga doorashaduna uu yiri media ay sheegayeen ay marto ayaa marka akhirkii
waxay isugu imaanayaan Washington markaasay si formality ah iyo marka waraaqahoodii oo ka soo horeeyay oo soo wada saxiixeen gobol kastaba ay hebel u codeeyeen ayaa marka la tirin markaas haddana si informality ah haddana ay codka u sameynayaan marka waxaan uga jeedaa marka arintaasi waxaan ka baranay khilaafka ka dhaxdhacay Mareykanka waxaanu ka baranay sidii aanu awal moodi jirnay inagana dalalka badan dabagediday dimuqraadiyadu inay tahay un fawdo oo kala oo intii maartay maalin un la dhawaaqo la dhahayo bariba doorasho la qabanaya ruux walba ruuxii doonaya in la doorto soo istaag ama gacanta taag ruux alla ruuxii raba inuu wax doortowna maalinka ayada iskeen wax u dooro oo markaa dad aan hortooda iyo dabadooda la garanaynin oo mabda'ooda aan la garanaynin oo khalaaqdooda la garanaynin hadda iska dhacaysa wadankeennii hadda Soomaaliya ka mid tahayba dalal kaleete degan oo dalal kaleete sharcigoodii haysta oo xataa dalka intii ugu badnaan cimrigoodii kaba maqnaaba waa waxa la dhahdaa diasporaha inay madax ka noqon hayaan oo la dooran hayo oo si maaragtay waliba ku tijaabi oo kala aha ay loo dooran hayo oo haddii ay maaragtay ay ku guuleystaanna ay joogi hadday ku guuleysan waayaan ay iska noqon hayaan meesha ay ka yimaadeen ay u noqon hayaan marka hore u qaxeen haddii ay maaragtay ay arrintu yar xumaatana uu yahay ruux maaragtay meel kale u diyaarsan tahay marka waxyaalaha inaga ina dilahaya dunida saddexaad waxa la dhaho markii dunida saddexaad la dhahana waxa marka qaarkood loo fiiriyaa dal qayr iyo dal fawdo iyo waxa loo fiiriyaa waa dal nidaamkoodu uusan sugnayn oo carqaladeyn fara badan lagu sameeyay iyo maartay faragelin fara badan oo dadkii dhabta u lahaa arrintan ayna say doonaan oo iyaga dhaxdooda ah wax u tashan karin oo in maartay u hagaajisan karin isku duubo waa intaas weey marka hadda maanta waxa dhacaysay marka in ay sidii qorshihii hore ee meediyuhuna sheegayeen guddiga doorashadana uu ilaaminayay in Joe Biden uu tirada ugu badan electoral college ka aha codka aha uu helay processkii la marahaya maanta ayuu bilowday waxa la dhaho certification Donald Trumpna sida caadadu ahayd wax kasta oo uu carqaladeyn karo ayuu carqaladeynayay ilaa yoomina hada wuxuu la taagan yahay maaragtay wax waa la khalday waa la tuugaystay waxba la xaday waa been weeye waxba kama soo bulay maxkamad laakiinse maxkamadii oo dhanna way kala safteen oo inuusan wixiisu uusan wax sal ku salaysan uusan ahayn ayay maartay qareen waxa kale iyadana muhiim ah oo dad badan ay sheegayaan khubarada ah maadaama uu nidaamka Mareykanku uu aad uga bedelan yahay nidaamada kale ee wax loo doorto taasoo tahay ay gobolka ku salaysan tahay arrintan uu Donald Trump la kordhabahayay ee ah maxkamadda sare ee tii hadda fiir Al Gore oo kale mar go'aan ka qaadatay waxa la yiri aad iyo aad ayay u adag tahay inay macnaha ay faragelin ku sameeyaan xataa tii Al Gore dadku say u arkaan ma aynan faragelinin kaliya waxay raaceen goboladu la isku haystay say wuxuu xukumeen bay raaceen oo maaragtay ku taageereen mooyeene ma ahayn inay wax cusub xataa maxkamadda sare inay la timid taas macnaheedu waxa weeye maadaama uu nidaamku uu yahay local asi wax la dhaho gobol kastaba nidaamkiisa iyo sharcigiisa iyo dadkiisa wax ku dooranayo haddii wax cad oo weyn oo aad iska muuqata uusan dhicin haddii nidaamkii meesha joogay uu taagan yahay oo uu leeyahay ka soo qaad shaqaalihii loo tababaray waxaan qabanay ay dhaheen sidan ay wax u dhaceen processkiina ay soo mareen wax cad aynan jirin ayagii naftigooda xataa maxkamaddii gobolka markii iyadana ay arrintii loo soo hordhigay ay dhaheen wax khaldamay ma aragno caadi weeye ay dhaheen guddigii doorashadii arrintii uu xaqiijiyey oo uu soo saxiixay in marka maxkamad sare oo federaalka aha ay ku amar taaglayso oo ay faragelin ku samayso waa arrin aad u weyn weeyo oo maaragtay xataa aan si loo maaragtay maamulo aan la helaynin sababtoo ah haddii dawladda dhexe ee federaalka ah ay arrintan maamulayso waxbay ahaan lahayd Australia oo kale way sahlantahay taasi way aad bay u sahlantahay sababtoo ah dawladda dhexe maxkamadan sare iyo shaqaalaha wax tirinaya dawladda federaalka markaan ka hadlayno waxa weeye isku maamul weeye oo isku meel weeye marka wixii si wala waxayn karaa laakiinse markii arrintu tahayba gobol kale oo sharci kale leh oo nidaamkiisa leh ayaa maaragtay arrintan maamulahayay
ay qoladana marka ku farageliyaan keli ah haday faragelin noqoto waxaynu ku sameyn karaan haday cad ay u arkaan in sharcigi gobolka la jabiyay macnaha waliba gobolka federaalka xataa sharcigiisa ma fiirinayaan waxay fiirinayaan sharciga gobolkaasi sababtoo wadanku waa macnaha waxa weeye federation way oo federal system way dhegeystayaal waa 3CA iyo shabakada war iyo wacaal ama wargelin YouTube-ka oo isku dhex jirta haddaanu u gudubno dhinacyada kaleete waxa iyadana si xumaanaya calaaqaadka xagga dhaqaalaha mushtariga wadankan Australia iyo China waxa arintii hadana si cusboonaysay maanta oo wararka ka maqlayseen in mujallad ka soo baxday bal wadanka China ahayn kuwa officialka ee kuwa dawladda waa dal Mareykanku sorry China ma oo dal meediyuhu sida wadankeena oo kale Australia oo kale isaga fasaxan yahay oo marka kuwa waxa jirta haday hadlaan ama wax lagu soo qoro ay macnaheedu loo arkayo inay codka dawladda ku hadlayaan ama codka dawladda inay ku hadlayaan laakiinse kuwa waxa la yiri aan ahayn kuwa si iyaga ah oo kuwa tabloid waxa dhaho kala ah ayaa waxay maanta qoreen meediyuhu ay sheegayaan inay qoreen oo dhaheen arintan istaajinta waxyaalaha laga gadanayo wadankan Australia sida qabandida bahashan la dhaho maaragtay khamrida iyo mid ayadana hadda la magac dhabay oo laga yaaban yahay carabka ay ku dhufteen oo la dhaho maxaa la iron ore oo bahashan lagu shido korontada lagu sameeyo lagu gubo dhagaxa korontada maartay warshadaha sameeyo korontada dhaliya loo isticmaalo in ay dawladda China waxyaalaha ay u yareynayso inaynan ahayn waxa ay sheeganaysaa inay tahay arrin la saabsan inaynan wadanka China uusan ku qanacsanayn ama uusan ku faraxsanayn ama uu xanaaqsanayn wadankan Australia sida uu dhaqmahay baryahan arrintaana la sii adkeyn doon waxay mujalladaasi ay sheegtay baa la yiri inay tiri meela balantiyo ama warshado korontada dhaliya oo China kuwa badan oo kamid ah ayaa waxa lagu amray in ay yareeyaan isticmaalka ay isticmaalayaan koolka ama dhagaxa madow korontada lagu dhaliyo ee wadanka China ka imaanaysa arintaas ayaa marka ra'iisul wasaaraha Scott Morrison uu ka hadlay una kana muujiyay walaac uu yiri arintani haday run saa u tahay waxay ku keenaysaa kalsoonida ay aad u yareynaysaa caalamku xataa uu ku qabo wadanka China taasoo oo macnaha hadii uu dalku dal kaleeta ay inta isku yar xanaaqaan uusan happy ku ahayn ama maartay uusan ku faraxsanayn sida ay oola macaamilayaan siyaasad ahaan inay dhaqaalahooda raadeen ku sameynayso ayuu yiri waxa ka horeysay taasi arintan qabandida iyo khamrida oo iyadana la saaray waxa la dhaho taarif waxa la yiraahdaa waa canshuurta lagu xadido waxa dalka soo galahaya iyo maaragtay dibadda ka imaanaya asaga oo sidiisa loo istaajinay macnaheedu waxa weeye haduu dal rabo in uu maaragtay xadido waxa soo galahaya alaabta noocaas ka soo qaad wadan hadana qabandida oo kale ee wadanka soo galaysa hadii ayagoon dhihin qabandi wadanka ka socota nooma soo gali karto ama qabandina wadanka ma soo gali karto si ayagoon dhihin waxa loo isticmaalay ee lagu joojiyo ama lagu xadido ayaa waxa kamid ah waxa loo taarif macnaheedu waxa weeye waa canshuurta oo aad iyo aad loo badiyo ka soo qaad hadii hada meel la dhihi jiray jawaankii qabandida ahaa misaaladan usoo qaato $5 la canshuuri jiray waxa laga yaabaa inay dawladdu tiraahdo jawaankii kasto oo qabandi ahaba waxa la canshuuraya hada konton baa la canshuuraya markaas marka qaarkood waxay gaadhaa beeci lagu gadahayay mid la mid ah ayay dawladdu saari kartaa marka waxay iska noqonaysaa asagoon shaygii la hor istaagin oo la dhihin qabandi wadanka lagama keeni karo ayaa waxay iska noqonaysaa dadku kambaniyadu inayna keeni karin sababtoo ah faa'iidada ay ka helayaan ayaa macnaha aad u yaraanaysa ama baan jirayniba marka wadanka China qabandida iyo khamrida iyo waxyaalo kaleeto ayaa waxay saareen taarif aad u fara badan ayay saareen taas ayay marka dawladda wadankan Australia ay ka muujisay ka hor inay arrin aan sax ahayn mustarigii furaa ee ka dhaxeeyay labada dal
iyo heshiiskii ay World Trade-ka adduunka bacmushtariga adduunka ay ku waafaqeenna ay jebinayso taa daraaddeed ay ka fikirayso inay maxkamadda dhexdhexaadisa xagga bacmushtariga caalamka ay waddanka China la fuulayso maadaama ay labada dalba saxiixeen inay si maaragtay cadaalad ah oo maaragtay ahayn aan loogu talagelin inay macnaha in la isla macaamiilhayo oo macnaha qolada kaleete aynan alaabtooda joojinaynin iyadoo sabab u sheegin maaragtay amaba ayna qiimaha غير caadi ayna saaraynin arintaas ka horeysay tanna waa lagu soo daray runtii waxaa la dhihi karaa oo aniga ila tahay dareenkayga in dawladdan Scott Morrison uu hogaaminayo in ay ka gaabiyeen aynan akhrin waay ku adkaatay inay akhriyaan dareenka China ee soo socda ee muddo dheer soo socday ay maaragtay ka muujinayeen walaaca waddankan Australia sababtoo ah misaal markii ay dhaheen bahasha la dhaho company-ga la dhaho Huawei-ga oo sameeya waxa la dhaho 5G-ga ayaa waddankan Australia loo diiday inay maaragtay ay ka qayb qaataan NBN-ka ama kor ay maaragtay telecommunication-ka way ilaa xad way iska aamuseen oo iyagoo aad uga calacalay oo macnaha ka sheegtay way iska socdeen oo ma ayna ka hadlin laakiinse arrimihii kale haddana sii socdayba waxay ahayd markuu hadda COVID-19 iyo waxaan dhacay waa la socotaan Mareykanka waliba khaasatan Donald Trump waqtigiisa ayaa wuxuu aad ugu eedeeyay inay arrintani China ay ka yimid inay China ay gabad ful badan samaysay oo waxyaalo badan adduunka ay ka qarisay khalad badan ay leedahay oo ay gashay dalkii sida cad u soo baxay yiri arrintan maaragtay World Health Organization guddiga caafimaadka adduunka waa inay baaraan khaladaadkii hadday khaladaad gashay China waxay ahayd Australia ka mid ahayd dad badan ba markii isweydiiyay oo yiri sababta uu prime ministerku ilaa xaddaas u gaadhayo maxay tahay inta badan Australia waxay u dhaqantaa si la dhihi karo very smart ah oo ay tahay Mareykanka iyo Ingiriiska dalalkan way taageertaa laakiin si isma soo saarto si cad isu soo saarto markii uu arintu ay timaado inay hadal ka tiraado oo cod hadalkooda la weydiiyo baa laga yaabaa inay taageeraan dalalkan laakiin marka kale way ka gaabsadaan oo maartay si toos ah uma dhahan arintan iyo saama dhahan iyagoo fiirinaya dhawaanshaha iyo calaaqaadkan aadka u dheer bacmushtariga ah ee ka dhaxeeya China waxaa khaladkii dad badan ay qireen waxa kamid ahaa uu Scott Morrison uu sameeyay inuu asagoon loo baahanin oo dawladdiisa si cadaan ah u soo baxday oo tiri arintani waa in loo gudbiyaa World Trade Organization-ka World Health Organization-ka si ay u baaraan China meesha ay maaragtay khaladaadka ay gashay haday khalad gashay iyo wixii dhacay macnaheedu waxa weeye iska duubo in la baaro oo waliba dibadda baaritaan ka imaaday u baaro taasoo tusaysa inaad macnaha aaminsan tahay inay khalad samaysay China arrintaas China aad iyo aad ayaa uga xanaaqday marka waxyaalo badan oo kuwa ka mid yihiin ayaa soo socday marka hadda ayaad moodaa marka ra'iisul wasaaruhu inuu isku dayahayo inuu maaragtay arrintii xogow ka bedelo oo uu maaragtay yiraahdo wada hadal hal la muujiyo waxyaalaha kale China samaysan waxa kamid ah cabaar soo socday inayba diiday muddo hadda sanad ka badan in wasiirada China iyo wasiirada dawladda Australia ay wada hadlaan wasiirada Australia ayaa waxay isku dayayeen inay la hadlaan oo iyagoo processka channelka caadiga marahaya dawladuhu iskula macaamilaan oo wasiirka kale ee China uu la hadlo markaas telefoonka lagama qaban hayo ama laguma soo celinayo waxyaalaha iyadana aad u dhacaysay kamid ahay China markii la weydiiyana waxay ku andacoodeen mashquul baanu nahay mooyeene wax aanu diidanay ma jirto laakiin dadka garanaya khaasatan media khibrada ku ah waxay arkayeen in arrintaasi aynan ahayn arrin caadi ah oo ay tahay arrin China oo ay toos wato marka taasna waa arrin socoto weeye runtii aad moodid in ay maaragtay maalinka ka dambaysa ka sii darayso waxa iyadana la socotaan inuu ka hadal la isdhaafsaday aad u daran arrintii Afghanistan askarta Australiaanka ah ee waddanka Afghanistan dhibaatooyinka daran ka sameeyay dad shacab ah si xaq darro u laayay in arrintii runtii xaqiiqada hal la qiro dal ceebtiisii iyo askartiisii soo bandhiga si cad u soo bandhiga oo yiri waliba maxkamad baa la saaraya kuwa qaarkood ma badan xataa kuwii aan dambi toos ah lagu haynin biladihii la siiyay laga xayuubiyay iyo Australia waxa xagga markii loo fiiriyo arrin weyn bay qabteen China ayaa marka arrintii iyaduna damacday inay uga faa'iideysato
waxaa inaan isbuucyadii hore ka hadlay waramahaye askari Australian ah oo ilma Afghanistan lagu tilmaamay toori cunaha kaga haya ayuu nin madaxda sarsare ee wasaaradda arrimaha dibadda ka mid ah China ayaa Twitterkiisa soo geliyay arrintaasna runtii anigana waxaan isdhihi lahaa ra'iisul wasaaraha waddankan Australia si iyadana waxoogaa laabla ka aha ayuu oga jawaabay oo xanaaq badan buu muujiyay waxaa kaga habboonay in uu yiraahdo look annaga maxaan dal dimuqraadi ah waan ognahay khaladka ay askartanadu samaysay aad baan uga xunnahay waan ka raali gelinay Afghanistan dadkiina maxkamad baa u socoto la saaraya waxaan jeclaan lahayn inay China iyadana saas oo kala tahay oo dadka khaladaadka gala saas oo kale si toos ah ay dawladuna u qirato ayna khaladkan maxkamadda soo saar miisaalni u soo qaataba waxa la og yahay iyo balaayada ka socota hadda dalkan gobolada muslimiinta ay China ka degan yihiin ee la leeyahay waaba dad dhan ayaa guryahoodii iyo wadankoodii lagu xabisay oo maartay xabis ku jira oo maartay la leeyahay dhaqankooda ayaa la bedelaya marka inuu dhaho anagu waan khalad waa naga dhacay askartanaduna khalad xun bay samaysay waana la qiray maxkamad baa la saarayaa waanu qiranay waana ka xunnahay laakiin se waxaad ku ogaateen waxa weeye inaan anagu qiranay oo sheegnay oo waxaynay ma waana xaqiiqo taas weeye adduunka kale ma uusan soo baxay ma baadhin Australia ayada ayaan isbaadhay ayay soo saartay oo qiratay oo tiri this what our soldiers have done and we are very sorry about it inuu saa ku dhaho ayay kaga habboon laakiin se wuxuu wuu xanaaqay inuu la ficiltamay oo kale ayuu tusay uuna yiri maad raali gelin inay ka bixiyaan China arrintii way ka heleen oo maad raali gelin inaha yaraatee kama ina bixinin inta aan ku jiro wadankan Australia waxaan jeclaa iyadana inaan ku daro runtii arrin aad iyo aad aan u xiiseeyo on maaragtay meel adag igaga taagan wadankan Australia waan ku cusubnahay waxaanu saadaanu nahay Afrikaanka khaasatan qaaradda Afrika waxaanu nahay community ugu dambeeyay yimaada baanu nahay marka saansaanka iyo leelolaba dhaqmo ayaana noqonaysa midka raadeyn weyn ku sameynaya sida maaragtay aan leelolaba dhaqmo mustaqbalka ayay noqonaysa marka arrimaha aan aadka marar badan oo ka hadlayga maqasheen waxa kamid ahaa waxa runtii soo baxday soo markii aan ku soo badanay waqtiga wadankan Australia oo muuqaalkeena u batayba dadka iyo ururada siyaasadda ayaa kala maydhmahayay oo kala istaagahayay meel kala cad dad qaarkood ay ururo waxay inoola dhaqmeen dad kale oo wadanka ku cusub sidii mar ay ugu cusbaayeen dadka Eastern European-ka ah marna ay ugu cusbaayeen kuwa ka yimid meelaha kale ee maartay dalalka kale Asia uga yimid Vietnamese-ka Chinese-ka Lebanese-ka uga yimaadeen oo kale ayay waxay dheen kuwana waxoogooda iska wataan ka bedelan kuwi kale way iskala qabsanayaan yay dhaheen oo maaragtay wax weyn ma ina muusin dadka qaarkood iyo ururada qaarkoodna waxay damceen inay farta inugu fiiqaan waxay damceen inay ka dhigaan in dadka kale dhan ay yihiin dad susuubina ahaan jiray waxoodoo dhan wax la garan karo la fahmi karo u ahaa laakiin se Afrikaanku ay ka bedelan yihiin oo dad nooc kale ay yihiin oo xaaladoodu u baahan in si gaar ah loo fiiriyo ayay ahayd khaasatan ururkii waqtiga asaga aha taa ku dhaqaaqay qarsanin wuxuu ahaa ururka liberaalka buu ahaa ma jecli inaan dad maartay farta ku fiiqo laakiin se haddana se arrin la qarin karo ama arrin laga gaabsan karo ma aho waa iska caddahay waxyaalihii dhacay wasiir dhan oo wasiirka waliba socdaalka ah ayuu ahaa ninkii yiri markii dad dhalinyaro ah waxyaalaha khaladaada ka dhaceen oo Afrikaan ah yiri buu ahaa show khalad bayba ahayd dadka Afrikaanka wadankan Australia in la keeno calaamad su'aasha ayuu saaray waxaan la soconnaa markii iyadana sidoo kale 2 sano ka hor doorashadii gobolka markay soo dhaweey loo soo diyaar garoobayay in uu Peter Dutton ninka Queensland laga soo doortay wasiirada ugu awood weyn wadankan Australia hadda maanta Home Affairs wasiirka ah in uu yiri magaaladii Melbourne inta la eg dadkii habeenkii casha ayay u bixi laayeen maqaaxiya habeenkii ma aadi karaan ayagoo ka cabsanaya Afrikaanka iyadana waxay ahayd wax la isku og yahay oo cad oo la record gareeyay ayaa ahayd waxa kale oo iyadana ognahay in
gobolka inkastoo gobolkan Victoria uu yahay gobolka ugu multiculturalisan uu yahay ugu multiculturalisan dadka Afrikaankana ay ugu badan yihiin uguna soo horeeyeen ahna dadka ugu fiican ee macnaha fahamka iyo garashada ugu horeeya Australia marka loo fiiriyo haddana liberalka fursadda in ay ka faa'iideystaan oo ay dhahaan dadku show Afrikaanka way necab yihiin marka haddaad dhahdaan Afrikaankan annaga idinka celinayna way idin codaynayaan way iska xajin waayeen waxay noqotay too good inay misgareeyaan fursaddaasi waliba leadershipkii waqtiga asaga jiray waxaa la ognahay oo anigu arrintan aad baan u fiirinayay in waraaqo internetka laga soo saaray oo dad madmadow ay ku dhex jiraan inay xaafadaha waliba istiga ah dhanka laga soo doorto xagga iyo maartay dhinacan istiga waxa la Torag iyo Waverley iyo dhinacaas ay ku qaybiyeen ay dhaheen dadkan maartay ugaarsatada aha iyo idinka annaga uma idin dhaxayna ayagoo ay maartay ay ku qaybiyeen oo ku waxayeen oo ruux walba oo arrintan hoos u fiiriyo arkayay inay ahayd macnaheedu dadka Afrikaanka ah oo dhibaato wada oo qas wada waxa kali ah ee si fiican u garaaci ee si fiican u edbin ee si fiican idinka hor istaagi waa annaga laybarku waa idinku macnaha baaldaajinayaan maxaan arrinta hadda u sheegayaa arrintaas dhacday wax la og yahay ah waxaana mudan in la xuso isbedel weyn waxa dhacay aad u weyn markii dawlad gobolkii doorashadii gobolka Victoria ay dhacday oo shacabkii Victoria ay si aad u badan oo la safteen una taageereen arrintii iyo mabdii iyo siyaasadii uu Daniel Andrew watay ee tolerantiga ahayd ee wada shaqaynta ahayd ee dad inaan la target garaynin oon la cambaaraynin ahayd markay la safteen ayaa waxay ku qasabtay dawladda dhexe federaalkana inay iyaguna kuwa liberalku ay joojiyaan arrintii say u dhantayba way joojiyeen kumana inay garan doorashada iyadoo marka hore ay u diyaar garoobahayeen inay ka dhigaan arrin doorasho waqtigii doorashadii federaalku ay dhacaysay completely way istaagtay hal eray oo ku saabsan arrintaasi lama maqal markii doorashadii Victoria ay dhacday oo liberalkana dharbaaxa xun ku dhacday waxaan maanta arrintan u sheegayaa ninkii hogaaminayay liberalka Victoria Matthew Guy oo xataa aan arrintii halkii ku istaagin oo mar dhow xataa arrimihii kale sii waday markuu COVID-19 ku dhacay hadalladii kamid ah waxyaalaha iyo wax isku waafaqeen asaga iyo Pauline Hanson ba waxay tiri horaan baan idin sheegay arrinta idinta taabtay dadkan maartay guryaha dheer lagu xiray waa dad aan luqadda garanaynin khamriye cab ah darag addictorna ah oo maaragtay waakii xataa soo dirtay stubby holderska soo dirtay xataa waxyaaluhu yiri asana waxa kamid ahaa dadkaasi waxa cudurku meesha uga dilaacay waxay ka qayb qaateen biyo dadka qaarkood waxay ka qayb qaateen Black Lives Matter taas oo sal iyo raatoona aan lahayn dadka meesha degan waxba kameen ugeyn barinta hataa Matthew Guy asagoo ka baxsan dawladda oo macnaha aan ku jirin maamulka ururka liberalka ah ayuu ninkii ku jiray ba hadaan si dib u yar noqdo markii ay dharbaaxa xun ku dhacday oo uu Matthew Guy lusgareeyay doorashadii ay ahayd inuu san lusgareeyay waliba si xun uu lusgareeyay la ogaana meesha uu ka istaagay ururka liberalku waa uu iska casilay waa la cayriyay xataa ururka madaxda xataa maartay waxa la dhaho cabinetka ee manaha wasiirada shadowga ama mucaaradka kuma uusan jirin hadda ayuu soo noqday ninka hadda ururka haysta ayaa tabar yar waxoogo yar oo maartay xataa waxa loo arkayaa asagoo khaladaad ay dawladda ka dhaceen inuu maartay uu wax sameyn waayay maartay raadayn ku sameyn waayay marka awoodiisa ayaa bil shayki yar ah waxa laga yaabaa marka Matthew Guy inuu doonayo inuu soo noqdo marka arrinta hal la socdo hana la ogaado waxa muhiim ah oo laga maarmaan in la ogaado ma oo adduunka ruuxa wax kugu sameeyay iyo ruuxa wax kugu sameeynin ee wax ka weyn marka qaarkood socota taas waxay tahay marka shakhsi uu toos ku weeraro shakhsiyadaada bilim aadanimadeeda jiritaankaaga wadankan aad ka tirsantahay markuu toos ku weeraro ku kaleetana inuu ku weeraro iska badbaayay oo ku difaaco haddaad kala saari weydo labada kooxood kii ku difaacayay wuxuu xaq buuna u leeyahay dhahayaa soo ruuxani dad wax dareen laba ma waxba ma garanay maba kala yaqaanaba ruuxa u roon iyo ruuxan u roonayn ruuxa daacadda ah iyo ruuxan daacadda ahayn maba kala garanaya miyaaba ku dhahay waa xaqiiqo ku jirta way marka arrinta aniga aan u soo celiyo ina kollaba u iloobaynin Matthew Guy iyo maamulkiisii iyo liberalka waxay tahay
maadaama oy tallaabada ku dhaqaaqeen inay ogaadaan inaynan they cannot get away with it haddaan ingiriis aan u dhaho inay that they cannot get away with it waana arrin muhiim inaan ogaano haddii aanu afrikaanka community afrikaanka ee Melbourne ay noqoto arrintaas inaan dirbe iska ilowno oo kaanama iyadoon dhicino laga soo qaado yaa marka balaam garayn haya haddii ururada kaleeta ay dhahaan ayaguna dadkani idimaba kala garan hayaan haddaad sharaftaan iyo haddiina sharfin haddaad qadarisaan iyo haddiina qadarin haddaad la safataan iyo haddiina la safanin idimaba kala garan hayaane maxaad markaa aad waqti iskaga dilaysaa ruux bini aadan fiican inuu yahay waa sax way fiican tahay oo waajibkiisu u guto laakiin adigana waxaa waajib ku ah inaad kala saarto ruuxa ku xun iyo ruuxa ku fiican marka Matthew Gay waxa laga yaabaa inuu soo noqon hayo inuu dana leader u noqdo laakiinse wuxuu ku jira hadda shadow cabinetka ayaa lagu soo daray waana ninkii arrimaha ka dambeeyay ee sameynayay weeye maaragtay qayb ka ahaa dadkii sida tooska aha u weeraray dadka Afrikaanka damcayna in lagu doorto inuu doorasho ku helo ku guuleysto arrin kale intaana ka sii bixin aan idin la wadaagi oo iyadana aad muhiim ah oo mar hore inoo ka hadlay aragteen waxa bariyahan bas socotay in liberalku community-ga Afrikaanka guud ahaan ay maaragtay ay xiriir la sameynayaan dad baa xataa xubno ka noqday baa lagu yiri meetingayna ay qabteen Afrikaan dhan yana dhihin waxa ogaataan oo xaqiiqo ah liberal waxa ay sameeyeen darteed community-ga kaleete ee wadankan hadda Australia magaalada Melbourne oo ugu xoog badan East Africaanka mooyeene waa South Sudanese they don't dare inay u tagaan South Sudanese oo la xiriiraan khaasatan sidee oo dhaqman waxay ku sameeyeen waxay marka soo galahayaan East Africaanka khaasatan Soomaalida ayay maaragtay la dhuntaan oo maaragtay ay la sameynayaan xiriir oo dad la dhuumanayaan waxa su'aal marka mudan in la isweydiiyo marka aad fiiriso meesha meetimada ay ka dhacayaan iyo community-ga ay la soo xiriirayaan waa Melbourne way waa kursiga Melbourne maro horaan ka hadlay waa inaad kala ogaataan saddex tago ayuu kursiga Melbourne ka jirta waa councilka waa City of Melbourne waa gobolka kursiga Melbourne asna la dhahaa xaafado fara badan ayaa soo gala ilaa laga soo bilaabo Richmond Abbotsford ilaa xaggan Ascot Valley iyo Kensington ayaa iyo CBD-ga baa ku jirta gobolka markii la dhaho waa midaan afwan midda gobolka kuma jirto Ascot kuma jirto gobolka waxa weeye Carlton laga soo bilaabo ilaa Kensington Ascot Valley ku jirta meel intaas weeye laakiinse midda federaalka ayaa aad u gudaweyn dabcan oo ilaa laga soo bilaabo Ascot Abbotsford Richmond ilaa maartay Ascot Valley iyo Kensington iyo ku jirta taana waa federaalka weeye su'aasha meesha ku jirta marka waxay tahay liberalku lagama soo doorto wax raja ana kuma laho waxa la dhaho ina sababska wax raja ma ay laho lagamana soo doorto ina sababska waxay u badan yihiin dhinacan istiga ah haddaba bal isweydiiyo maxay markii doorashadii gobolku ay dhacday 2008 baan u malayn 18 baan u malayn inay ahayd wax yar kadib ayaa waxaan warar ku helay aan ku kalsoonahay in ay la sameeyeen xiriir Soomaalida khaasatan xaafada North Melbourne iyo North Melbourne iyo Flemington ay la sameeyeen dad aha una yimaadeen xiriiran la sameeyeen su'aasha marka la su'aalka u baahan ba waxay tahay sababtu maxay tahay ma kursiga Melbourne bay u dhawaadaan inay ku guuleystaan oo ay leeyihiin aanu kasbanno Soomaalida si ay maaragtay noogu codeeyaan ma aaminsani ma kursi kale u dhow oo aad uga fogeyn oo areadaas ah oo markaa dadna Soomaalidu iyo ku yar badan tahay bay doonayaan inay maaragtay sida ku kasbadaan sida macnaha maxaa la Moribron oo kale waa Bill Shorten ninkii mucaaradka ninkii hogaamin jiray mucaaradka liberalka aadka loo yaqaan meeshu ka soo doorto I don't think so way aad bay ugu fogtay inay rajo meesha kaga jirto ma maxay kaga jirtaa kursigan la dhaho maartay greenka iyo laborku isku haystaan Cuba la dhahay gabadhan maartay Jed Kani laga soo doorto xaggan Preston iyo North Coast iyo dhinacaha kaasa xuduudda kala ah miyay rajo kaga jirtaa waa maya rajadoodu aad bay uga fogtahay iyadana waxaan idin taabtay hadda xaafadaha Northka iyo Eastiga ah waa meesha uu liberalku inaha bayrat wax rajo ay ku leeyihiin meelaha waxa jirta in rajo ku lahayn ay overwhelming labor u codeeyo waa Westiga way
marka uma baahniba marka xagga westiga Footscray iyo Werribee iyo dhinacaana inaan u dhaqaaqnaa ma jirto haddaba su'aasha meesha ku jirta waxay tahay sababta doorashadii gobolka marka ay dhacday oo dharbaaxa xun waliba ku dhacday liberaalka ay liberaal gobolku maamulkii gobolka directorka oo kale lagu yiri uu u yimid North Melbourne oo Soomaalida oo la soo xiriiray maxay tahay uu doonayay inuu kasbado aniga waxa ay soo baxaysoon hal sawir kaliya ay soo baxaya ma aho inay doonayaan cod inay ka helaan sababtoo ah cod Soomaalidu ay siin karto oo kursi ay u dhow yihiin oo marka balance-igu ay Soomaalidu u noqonayso ama East African u noqonayso kama dhawo area-dan waa xaqiiqo way iska cad ruux ka fiirin kara haddaba mid bas baa ay soo baxaysa aniga oo meesha ku jirta oo dadka inay ogaadaan u baahan yihiin in la isticmaalayo maxay tahay waxa weeye waxa hubaal aha dalka dhanna wada arkay media dhanna sheegay laskuna waafaqay in ay soo baxeen anigu waan aaminsanahay way ahaayeen liberaalku inay yihiin anti African inay yihiin waliba waqtigii doorashadii gobolka Victoria ayaa si very clear u soo baxday inay anti African yihiin arbaaxa xun baa ku dhacday oo shacabkii Victoria thank you God ayaa la saftay Labourka iyo Daniel Andrew iyo maartay Afrikaanka la saftay oo yiri we are not accepting racism iyo discrimination ma aqbalayna lagu yiri maxay marka ay kaga jawaabeen liberal waa in arinta ayada ah ay address gareeyaan oo at least markay ugu xun tahay ay maartay ay maxal dhigi eego muxuu ahaa ay maartay neutralize gareeyaan neutralize inay ku sameeyaan oo negative ka xooga badan ee ku waajahan ee ah Afrikaanka nacabtihiin Afrikaanka lid ku tihiin inuu yahay waa inay neutralize gareeyaan ayagoo oo dad aan siyaasadda saa u garanaynin dhalinyaro saga badan aan aqoon u lahayn aban akhriin bacta media isticmaalahaya ayaa waxay rabaan inay anti Afrikaanka ka muuqatay ay Soomaalida u isticmaalaan si ay u neutralize gareeyaan neutralize gareyntaas marka maxay tahay I tell you exactly how ay u dhacayso waxa dhici doonta markii hadda doorashada gobolka dambe soo socota insha Allah hadii Ilaahayna gaarsiiyo laba sano ka dhiman horeeyay ay timaado su'aalaha ugu horeeya ee la su'aali doonay miiriyuhu way xusuus dheer bay leeyihiin markasta markay waliba wax badan oo dhahaan aynan hayninna waxay jecel yihiin inay wax baarbaaraan oo maartay say u galaan under the skin of the politician maxay ku dhahayaan are you still anti African batihin oo dadka Afrikaanka ama inay ay undesirable yihiin oo aynan meesha joogin oo ama dhibaato miyaad wali aaminsan tihiin yaa su'aal noocaas la su'aali meeshii marka ay defensive gali lahaayeen no dhihi lahaayeen oo wax evidence in ayna haynin ee ayaga la cayrsan lahaa iyo waxay rabaan in ay ahaad mid ay haystaan sawirro sida ma taqaana dadka maartay cuntada markay kariyaan oo kaliyo ama marka ay maxal dhigi jiray ay wax la sameeyo dhaha he is the one we prepared earlier markay dadku doonayaan inay ku tusaan wax ay maartay inuu fiican yahay iyo intay ku sharxaan ay ku dhahan wax waasaa iyo wuxuu ku dhihi deedna he is the one I prepared earlier waa ka mid aan horaan u soo diyaariyay oo marka lagu tusaya marka waxay rabaan inay dhan waasa aniga aan aaminsanahay weeye wax arinta ka bedelan wali maana arag sababta idin sheegay bana kamid ah sababta ay hadda Soomaalida degan Carlton North Melbourne iyo Kensington iyo Flemington iyo degan in sababiska ah oo inna habeertay wax rajaa ku qabin inay liberal ama kursi u dhow uusan jirin xataa sababta ay ugu wareegaysan hayaan ayaa macnaha ayaa cadaynaysa inay tarinta waxay rabaan markii su'aasha la su'aalo la dhaho are you still anti-African? Are you still, think African is undesirable? No. Anaga African ka saaxiibaan la nahay. All of that was a misunderstanding. Here is the photos us meeting with the African communities. Markaas Soomaalida meetingkii la galahayay ayaa la tusayaa sawirrada laga tusi kaalay baa la dhihi arka waa kan baa la dhahayaa. Marka macnaha ujeedaduna maxay tahay not in la raali geliyo soo Afrikaanka not inay khaladkaasi mar dambe inuu dhacaynin la dhaho oo la address gareeyay simply waxa weeyeen to neutralize it in media markay hadal keenaan inay dhahaan say anaga anti African u noqonayna waaba kan fiiri meeting kan aan la sameeynay fiiri community gathering kan aanu sameeynay la joognay inay macnaha oo lagu arinta lagu shut up lagu sameeyo media-huna marka asaga waxay ku noqonaysaa rightly embarrassment bay ku noqon sababtoo marka uu adigii ku hadlahayo oo siyaasigii ku ahaanaystay ee ku caayay ee ku ataagareeyay
ay su'aal legitimate su'aalaan oo dhahaan miyaad dadkan miyaad necab tahay mase khalad oo la dhaqantaa haddaba waaye hadduu keeno sawir cad oo evidence aha asagoo kula kulmahayo oo isku faraxsantiin oo happy ku tahay oodan la xisaabtamaynin haddee who's the media markaa arrinta sii wadwadi sii socodsiinaya miyaanan la dhahaynin idinkaa problematiga ah media arrin aan jirin baad doonaysan inaad socodsiisaan dadkani waa happy marka horena wax aan afrikaanka ku samaynay ma jirin idinkum baa beentan iyo waxaan sheegayso ma waa runtii frankly haddii loo dhaho waa disgusting way dadka suuqaha la galahaya laga gabanhaya liberal on raaligelin full bixinin full apology inaynan khalad sameeyeen inay afrikaanka target gareeyeen inay afrikaanka oola hadleenba dad aan ahayn true Australians inay oola hadleen ayaga oon raaligelin ka bixinin arrintaana address garaynin dadka suuqaha la galgalahaya waa disgusting way wallahi waa billahi that's how I see them waxayna noqonaysaa kuwii ku hadli lahaana slap in the face ayaad kaga dhigaysaa sababtoo aha marka ay damcaan inay hadlaan oo ay dhahaan why are you targeting the Africans kuwani waxay la soo boodayaan when have we targeted here we meeting with them waxyaalaha raqiiska ah ee maqlahayeena waxaa ka mid ah la ii soo diray codadkooda in la leeyahay guryo ayaa la siinhayaa afrikaanka waxaan rajaynayaa arrinta guryaha ayaan isbuuca dambe ka hadli doonaa iyadana guryaha mar horena waan sheegay waan idinka raaligelinayaa housingka inaan maaragtay gobolka ayaa guryaha markii la dhaho gobolka ayaa u xilsaaran iyaan laydin khaldin laakiinse arrin baa iyadana dadka lagu leeyahay maaragtay waxaa guryo rent to own aha ayaa laydinka caawinhayaa oo laydinka siinhayaaye dad baad maqalhaya dhahaya imaada oo kasoo qaybgala oo waxbaa laydiin samaynaya macnaha wax caqligu arrinta haddaa sheegaya dib igu soo noqonaysaa marka intii la yimaado ina sababska afrikaanka loo yimaado oo la yiraahdo isxaan baa la idiin samaynhayaa specific ah oo idinku target geysan oo project ah you have to ask when is su'aasha weeye why ma kursiga meeshaas ayaga ay maartay laga soo doortaa oo doorataa waa maya ma rajay ka qabaan oo inaad meesha ay ka soo doortaan oo codkaaga ayaa wuxuu noqonayaa balance of powerka waa maya meeshan aan joogno waxaa isku haya oo balance powerka u nahay for sure greenka iyo laborka ma kursi kale u dhow oo aan aad uga fogeyn oo maaragtay inagii muuqaalkeena iyo wixigeena iyo faa'iido u keenaya baa jira sidaas aan idin sooga Moribron Bill Shorten meesha laga soo doorto mise kan laga soo doorto Cuba Jerkan laga soo doorto mise midkan Will Brunswick iyo dhinacan ninkan Peter Khalil laga soo doorto mise kuwan Westiga no none of that wax u dhow oo maaragtay u dhow oo laga soo ma jirto oo calaaqad leh kan Melbourne saan ii sheegay waxa isku haysta oo balance powerka aan noqon karnaa labor iyo green haddaba in marka lagu soo target geliyo suuqaha lagula galgalo oo sidii ciyaalkii lagu qarqarsado oo kale waxa kali ah ku dhacaysa in la rabo in lagu duugo daamici iyo ihaanadii iyo mistreatmentiga iyo insultiga ay ku sameeyeen Afrikaanka 2018kii laga yaabana aminkana inay xataa hoos aan u sii wadaan in macnaha lagu duudsiyo baa la rabaa and that is shameful really dhegeysi oo ku yadheeraad halka aad baad u mahadsantiin waxaan haddii ay caawa programka ay ku filaan weydo intaas waan soo deynaysaa radio ayaan ka soo deynaya ka dhegeysan kartaan haddii kalena waxaan iyadana shabakada maaragtay war iyo wacaal YouTube-ka ayaad ka dhegeysan kartaan oo maaragtay hadda hadda ka dhegeystaan xataa radioga caawa 15 bisha December ayaan rajeynayaa inaan soo daayo marka aad iyo aad u mahadsantiin wixii dheeraadaha oo hal saac oo programku ya ka bata waxaa toos looga wada dhegeysan karaa midda YouTube-ka waad mahadsantiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.